بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتيدا كحرم برتيدي يوتيوب كسود دواذا بليز جنالك هذا جافولي هدي أكو عصب تاي سبسكرايب نو سار لايك ده شير ده كومنتنا كبيها أصحاب تاع كلا سي جرسيسي وقفا إيدستان هدي هوري اللي جوكتر بقول وكوم هذا علنا يا سيد قروح دبضنا مرور باي داوته maxay ahayd like tii ugu saarto commentina ay iga bixisaan waxaan ku leeyahay maantana comment maxaa la dhahay like tii isaar like waxay ii suurta gelinaysaa in dad badan ay ugu soo xirmaan boqolkiiba boqolna waa mahadsantihiin kulligiinbo maanta sidoo kale waxaa idinka codsanayaa inaa wixii talo iyo tusaale ah oo ii heesiin ama fikrado ah ay igu soo gudbisaan qaybta commentiga dhiirigelinaa kasii qaadaya inaa maxayda commentigiina arko inaa like-tiina arko inaa subscribe-ka uu sii kordho marka Turkish sweet maanta idin wada macmacaankan Turkida caan ku ah oo samaysato waa maxayda wax yar oo fudud gurigaagana ku yaalo oo aad ka samaysan kartid marka soo dhawaad sidaan u sameeyay iyo waxyaabii aan ka sameeyay oo dhameystiran ku soo dhawaad insha Allah digsiga meesha ii saaran digsigaan ay wali dabka ma u daarin wuu qabooyahay marka waxaan ku soo shubaynaa biyo koob bakeeri labo bakeeri saddex bakeeri afar bakeeri kii shanaad hadda ku soo darsana marka shantas bakeeri oo ka koobnaan doona insha Allah biyaha waxa ku soo darsanayaa caano labo waa caano boor caadi ah saddex afar shan qaando waa shan bakeeri oo caanaha iyo shan qaando aan dhahay shan bakeeri oo biyo ah iyo shan bakeeri oo caano intaan isdhex qaadsiinayna marka hadana ila socos fiican ila soo macaanka haduu qiyaasta ka xumaado uu ka halaabaa ma fahantay koow sokorta waa hadana waxa ku darsanayno labo saddex afar shan lix todobo sideed sagaal toban qaandooyinkaas qaandada isticmaal weyne waa qaando weyn marka waxa ku soo darsanaa hadda burkii laba qaando saddex qaando afar qaando shan qaando waa bur aan soo shaqshaqo oo soo nadiifiyay lix qaando todobo qaando sideed qaando intaas oo isticmaalina insha Allah taala qaandada qaandooyinka cuntada lagu cuno iyaga kala way marka hadda waxa ku soo darsanaya kastaran ku soo darsanaya ama maxlabiyad ama labaniyad sida u taqaanid ma fahantay marka hal qaando buuxdan ku soo daray hadda waxaan ku soo darsanaya carfisada sirta ah dhalada ku jirto oo mid dareeraha ah haddii rabto waa ka maarantaa ma fahantay waxaan ku shubanayaa marka wax yar way igu dhamaatay intaas ay ugu dambeysay inta sirta ku shubana ma fahantay marka intaana waxa sameynaynaa wali dab ma u daarin waa isku dhax qasay wali ana waa ogtiin bur iyo kastar waxa waaye ilaalintooda aad in loo badiyo waaye dhooti burbur ka yeelna ama kuskus intaana uu ku walaaqa dabka u shidaaya marka waa isla arkeena sidii ku soo baxda mana ka deynaya qaandada ma ka deynaya waa kor taagnaana meel ma ugu bixi kartid laanahu way ka halaabayaan ma fahanta ku dadaalna kor taagnaad soo u jeedaa meena soo ku soo bax saan le qaandada ugu wada ilaa inta saan uu ka naqnaa ma fahanteen hatta asagoo wali aan soo karin waa ku wada qaandada because markuu soo karay hore kuskus ka soo yeelna waa bur iyo maxaa la dhahay kastar labadan waa taqaan marka saas oo qurux badan uu ku soo baxay oo maxay jileeca adeeg zaid inuu ka naqdo mal rabo ma fahanteen marka batarkaas isticmaalaya laba qaando camal aan ku soo darsanaya caaga wiga dhamaanayo intaas ay ugu dambeysay laba qaando oo waaweyn oo buuxdo camal waaye oo batar marka intaana isku dhex qaadsiinaa maxaan ahaday korontadana si fiican oo garaaca marka inuu gudaha ka galaan rabo dabkan inaa ku saartay mal rabo batarka oo ku bis oo ku karkaro mal rabo asoo wali kullo dhulka yaalo maxay ahaday batarka ku darsanaysaa makiinadaas isticmaalaysaa kabacdi marka aan weelasheena ku soo shubanayna insha Allah taala geesaha waxay isay keenkeenaa insha Allah
marka shantan bakeeriya isticmaal rabaa. Bakeeriyaashan kuwa yararka waa kuwa take away-ga lagu qaado, kuwaasna waa kuwa shaaha caadiga ah. Kuwan haysanin yacni kuwa shaaha caadiga isticmaali kartaa. Halkan xaba idin tusinaya oo ku shubaayo, marka halkan xaba idin tusiyo kulay sida bakeeri loogu shubo qof walba uu fahmi karaa. Inta kale toodna anaa ku shubaa talaadada gelinaya, markaas 2 saacadood oo ku jira oo kaamil ah. Ka badan uu kuugu jiri karaa laakiin ka yar ma kuugu jiri karo, ma fahantay? ugu yaraan 2 saacadood inuu kuugu jiro waay ku adkaanaya. marka 2 saac ka bacdi markaan soo bixiyay sidaanu maxay ahaday marka 2 saac ka bacdi markaan soo bixiyo aan isku soo naqanayna insha Allah tacaala. kuwan waa daboolaa bakeeriyaasha shaaha laakiin dabool muu haay, ma fahanteen? ma daboolay. marka haddaan soo bixiyay waxaan isticmaalaa looskaas iyo maxay ahaday kuushaas yaroo nanaca ah iyo tan oo maxay ahaday iyadana ah shukulaatada yararka oo bariiska camal ah. decoration yar oo isticmaalaa haddii haysan waa ka maarmi kartaa, laakiin looska ma ka maarmi kartid yaa looska qasab waaye. marka waxaan idin kala tusinaa midka la daboolay iyo midka aan la daboolin. midka aan la daboolin xoogaa labeen uu ka yeelana, ma fahantay? midka aad daboolshane waa kaasa maasha Allah waa. marka waxaa sameynaya ada daarta bac yariis maaragta afka uga xiray, markaas talaajada gelinay. marka hadda waxaa sameynaa looskaaniit yaa meeshaan ku shubnaa, bacdan yaraa ku shubnaa waa si aan usoo burburiyo oo maxay ahaday budo aan uga soo dhigo insha Allah. soo buda isticmaaleyna. waa soo budeeyay weelkaas aan kusoo shubnaya. weelkan kale waxaan kusoo shubnaya qumbe maxaa la dhahay oo qallalan waaye supermarketyada lagu gadaa. midnima kasoo gadaan haddaa u baahan tahay kasoo gadan kartaa. qumbahaas isticmaalo adi 2 nooc inuu ii noqdaa rabaa. adi looska kaliya haddaa haysto waa ku dhaafan kartaa. looskaana 2 kun oo shilin uu joogaa, qof kasta yaqaan maahno. marka fiirisa ayala geesaha tartiib ugu soo fidina dhac hadan dhac ma fahanteen? waa gambina uu soo dhacaa. kan bakeeriga xoogaa adag laakiin kan ciyo uu soo dhacaa, ma fahantay? dhac mudido ruuxna uu ku soo baxaa. kan bakeeriga xoogaa uu ka qabsadaa. dadka waxaa tusinaa inay bakeeriga isticmaali karaan laanahu kan aniga take away-ga waxaan ku sameeyaa dalabaada ku sameeyaa oo dadka wax iiga soo doonta oo ku qaada. saas daraadeed guriga iigu yaala ma ahane qof kasta yacni guriga ma soo dhigto Soomaha waa la soconaa. marka saas daraadeed ani oo maxay u isticmaalayaa wuuna ii fudud yahay. marka kan adinka raba inaa idin tusiyo oo ku sameysatiin qasab maaha in inta baxda soo gado one time kaas yarka ah. marka saas daraadeed ay idin tusina insha Allah tacaala bakeerigan kalena. marka saas ugu taraarixinaysaa looska tartiibta gacanta markaa ku soo qaadaysid ma ku dhajinaysid janta yar tartiib ah u soo qaaday, ma fahantay? naano wixii hadii farta la geliyo ama dhab la siiyo waxaa waaye asiba waxaan ku dhahay bajaq tartiib oo caqliyeysan u soo qaaday insha Allah. si tartiib oo caqliyeysan waa maxay ahayd u gudgudinaysaa insha Allah. marka saas oo nagu soo bax kiilooska aan ku sameynay saxankaas yaroo dadka qofka ugu geyn laheeda marka saaranaysaa insha Allah. dhac subxaanallah aragtidiisa qofka martida aan markaa u geysid waa ku qancaya maasha Allah tabaarakallah. laanahu qurqurux yaraa loo sameeyay waa la shuutay maahano alaabta haddaa baaqul inta isaga shub qaantaa dhexda ka dhigo dhaho qofka cun waxaa waaye niyad ma yeelanayo. laakiin markaas aan u gadgadisid waxaan ku dhashay sharaxda inta shukulaato ka saartay inta dhinac ka saartay inta adduunka saartay waxaan ku soo jiidasho leeyahay, ma fahanteen? dadkan inta badan aad ay uga helaan. waana wax fudud oo maxay ahayd qof walba uu sameyn karo, ma fahanteen? marka waxaan rajaynayaa inaad tijaabi doontaan oo feedbackna aad commentiga ugu soo siin doontaan insha Allah sidoo idin naqday. muhiimadana waa dabka inaad waqti badan karinin oo maxay ahayd muddo 3 daqiiqo camal ka badan maba kaaga baahnaa. kii kala nafsikii sida aan yeelay u soo bixinaya geesaha ka soo qabanaya. marka waa dhiga xoogaa uu igu adkaada kan. marka geeska maarata jagtaas ka siin muddo dhac oo soo fuqoya hal geeska jagtag uu siinay hadda uu ku fuqo gees kale jagtaga ku siinay dhac tartiibtaas u qabanaya. marka ujeedaa mulana uu soo bixiyay hadda kaamirada idin ka jarjarin calashan si u fahantiin si u soo bixinay tartiibtaas ina fahantiin. anna muhiimada dhan waay haduu naga burburo ama uu naga kala daato ama naga kala jajabo waxa quruxdiya dhan dhumaysa, ma fahanteen? marka sidaana maxay ahayd saas daraadeed kaamirada idinku wada dhaafay si tartiib ina ila socotaan oo si tartiib u fahantiin insha Allah.
macmacaankan turkida aad caan ugu ah oo maxayda isticmaasho turkish sweet la dhahaa. Marka waxaan rajeynaa inaad sameysan doontaa. Qumbahan waa qumba qalalan marka wixii decoration kale ah oo adiga isticmaali kartid oo nanacaan hadda kuulaha oo aan kor u isticmaali doono kale ama shukulaatada yar yarto bariiska madow oo dusha aan ka saaray oo kaleetood saan waa ugu gadgadin kartaa ma fahanta adiga iyo dooqaada waaye. loosaska way badan yihiin anaga had looskaan la isticmaalna laakiin loosaska la jiro oo maxay carabta ka inooga imaado oo hadda supermarketyada yaala maasha allah iyaga naftirkooda waa isticmaali kartaa yacni ay qaab salaad saa ku qabataa loo dukada maahano decoration waxaa ka dhiganaysid yacni wixii kula qurxanaado wixii aad jeclaato wixii gurigaaga ku yaal oo maxay meel dheer aan ka doonayna waa ka dhigi kartaa decorationkaas. markaad shukulaad baashaaniti kuusha nanaca qaar waaweyn ku jiro waaweynka iska reebaya yani turtooyinka aan gado maxay ku decoration gareeyaa oo dadka qofka binki soo dalbado binki white ka isku baxaan badana aan ugu sameeyaa markaas daraadeeda aan isdhaha bal ku sameeyida ila qurxanaad. marka sidaan ku soo baxaa u jeedin quruxda badan leh maasha allah tabaarakallah qof walba wuu ka helayaa ma fahantay. marka waxaan idin ka codsanayaa janaalkana subscribe iyo saartaan asxaabtana sii gaarsiisaan si niyad fiican u yeesho oo muuqaalo kale oo dhameystiran oo yacni qurux badan oo waxyaabo ka faa'iidaan ah ay idin soo geliyo insha Allah tacaala. asxaabtina sii gaarsiiyo walaalahayga share ii sii dhaha waa ku mahadsantiin adinkana sida u daawatay muuqaalkayga mar walba maxay iigu sii share gareysaan dadka ugu sii gudbisaan talo iyo tusaalena waxa waaye waa igu leedihiin ina commentiga ii soo dhigtaan wixii talo ah iyo wixii tusaale ah oo iyo wadaan commentidin waa wada aqriya maasha allah. marka wax ka soo soo dhawaada akhyaartayda. qurux ishaada ka dhigaysa maasha allah wixii dhadhamiseen aanay wado waxaan rajeynayaa inaad sameysatiin oo maxay ahaydey oo idin anfac insha allah. waxaan kaga tagayaa bashbashi barwaaqo. assalaamu calaykum waraxmatullah.